جيلكاغي وحنا هاي لغا جري شيخكا ميدانو ويا وان جيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتين دما أمد صوماليات من البعالم كيك جوان قاران أصحاب تكوحيرين جنال كي فرحي إبراهيم. ويلكم تو فرحي جنال أصحابي فرحي ما نمحي ودا إنكستو أولا صوت داهي وحانا أنيق مررك قارا إندين داهي أنا أركو يان جعلا إذن كاننا إذن سو قد بي هدا دانينيس وحيابا قار إنا معنا إلو وذاكتان مركو أوريسو أن نقونا ضد صاحب سبسكرايب شيرت لايك وحي دنبو اسكو طاو إن شاء الله سيبا قنباليلكا نقو qofka ugu soo horeeya ee daawadaha ah maasha Allah tabaarakallah waa mahadsantihiin asxaabay maanta waxaan idin wadaa horta horta kaamirada wax yar soo fiirsada kadibna aan isku soo noqono insha Allah daawasho الله تبارك الله سيدا أتصو أركتين وحان أرقني إن قبر عياريسا قبر داس عياريسا أو لغو مسبذي إنو ضيحت النورشو قورسنايو واسيدا أي صومالي دي أي جعليهين مادام أنا صومالي أنا هاي عذر وحان قبنا وحنا كون مقورنا وحنا كان مقادنا ومعجسة إلى حقسنا وتمتو آفانتين أصحابي قويل كان ضيحت النورش فنان كين عنك سيدا أدهوري وتقانين wuxuu leeyahay gabar xaas leh oo maalin dhaweedba inay ka xanuunsato aan ognahay dhammaanteen oo aan wada duceyno insha Allah wuxuu leeyahay laba ciyaar mid waa ka dhintay gabadhiya uu joogto wiilkiya ka noqday alxamdulillah ilaahay xaqiisu u jiraa saqiir aakhir waa la jecel yahay alxamdulillah culumadu way jecel yihiin qofkii oo macna saqiir qiyaam leh barka maal waxa lagu yiri asaga macna miisaankaaga macna ku kaamilay insha Allah marka sida ay kitaab diinta ay sheegtay subhanallah waxa aniga ogahay ma aha marka insha Allah waxaan idin leeyahay marka wiilkii iyo gabadhii heerkaas isla gaarsiisanayeen ee yaraantooda isku soo barbaareen oo isjeclaadeen marka asxaabay gabadhan hadda aad aragteen macna xaflad yar sameysanayso oo iyada daneeda u gaarka ah sameysanayaan dadka Soomaaliya jooga boqolkiiba 90 waxay dib u qabaan in waxay jecel yihiin kulligood inay kaamiro soo wada galaan laakiin ma noqonayso gabadhan aad intaas ay jirtaa wixii ka horeeyay dhan weligeed waxay soo gelisay malaha weligeed ma aysan soo gelin iyadoo macnaa dhalashaan aan dhigtay iyo maxaa lahaa dhalo aan dhigtay iyo waxaas dhan ma jirin hadda laakiin social media sida loo sameeyay qof walba waxay ku talagalaysaa socialkaas u soo dhaxgasho way oroday social media soo gashay iyadoo cambuur qaawan wadato garbaha ka go'an xawadka ka go'an dusha gadaal feedan macna sida naag arooska xataa waa laga ilbaxay waxaas gabdhaha arooska hadda waxay u bateen badanaa xijaab madax la saarna cambuur gacmo dheeraan loo wataa gabadhaha ay soo qaqaawise alxaasil waxay ii sameysay dambigeeda ilaahaygeeda ku xisaabtamayaan laakiin ma fiicno gabar muslimad inay saas isku soo qaqaawiso insha Allah marka waxa lagu masabadi fanaanki da'yara dayax darnuurshe oo waxba ugu jirin naagtan waxay tir dhalasho xafladaan dhigana kale qarsha ay u dhiganaysa ida og marka social media badana waxay dhahayaan dayax darnuurshe wuxuu guursaday gabadha xaflada dhiganaysa uu guursaday dayax darnuurshe suu ku guursanaa gabadhan dayax darnuurshe naagu leeyahay sida idinka aad taqaaniin wuxuu guursaday dhooya ay dhahayaan hadda marka samsam uu guursaday dayax darnuurshe nooid wax anfacay ma inkastoo ninka ragga ee afar naag loo baneeyay haddana waxa anaga aan ugu diideynaa in sheekooyinkaas camal ee namaraan ama aan laqno ama waxa hadda uu qasbi inaan jawaab ka soo bixiyo inkastoo muddo ay ka soo wareegato oo aan la soo daay jawaabteeda ee mashquul awgiis insha Allah marka maanta aan nasiib u yeeshtay ama iyo qorneed inaan ka soo hadlo dayax darnuurshe in la masabidaayo banaanay taala waxa intaas loo sameeyay waxa waaye waa wiil yar mustaqbal yeeshtay reer leh maanta mas'uul asi da'diisa mas'uulnimada misla wiilasha dayax darnuurshe dhan oo da'dooda ee maanta Yurub joogo seeg isa qajaanim iyo inay baashaas daba socdaan oo maahin wax talo asahay mal hooyadiis ama aabiisa waxay soo qoreen da'yar da'di yaraayo daw taagan yahay waa nima asaga waaweyn oo maanta mustaqbal xataa aan haysan darbiyaarka taagan
ما شاء الله ما شاء الله أنكو ليا ضيح والالكي معان ويلكم سو دوا آد دي آدا وما سنتاي آد دي آدا نكو فرحسنا reer kaaga sida nadiifka ee aad u isticmaashid haddana walaalkay macaan waxay rabaan ummadan Soomaalida ee qaribsan ee qalbigooda madoobaada ee xasadnimada ka buuxdo in ay niyada ka dilaan waxaan ku leeyahay walaalkay hore u soco keep ha u joojina cidaan dad jiran waaye wax isku muquuraan maanta hadaad segseg ahaan lahaydna waa lagu cayn lahay haddana maanta waxaa tahay wiil mustaqbal leh oo rajo leh oo naagtiisii ilmihiisii mas-uul saaranaad tahay maasha allah tabaaraka allah oo xaaskiisana aad iyo aad u tixgeliyo aad iyo aadna u jecel maasha allah inkastoo baryahan dambe kaa xanuunsata ilaahay caafimaad allah kuu siiyo xaasidnimada iyo isha dadka waa waxa dadka saas u baabi'inayo oo iyadan ee la dhacdo isbitaal ee la gashay waa ka xumahay marka samidee waa farxiyo ilaahay macnaa cadowgaaga cama allah kaaga dhigo ninkaaga aad labadiina isku jaceylka aad isku guursateen noqda kuwii isku waaro ubad khayr qawaaba kala hesheene inta dhiman allah idin dhammaystiro kuwii isduuga noqda kuwii isduuga inaa noqotiin allah idin kaso waxaa mar walba farxiyo ku dadaashaa xaasidka iyo macnaa Soomaalidan oo kala hadalka badan ee warkooda bilaa macniga ah oo dadka inay isku diraan ma wax kala aan rabin hadalladooda intaa qaadatid walaashay macnaha ku duulin isdaji si nidaam ee wax walba soo hubi wax walba ogaa hadda wiilkan loo dacaydeyna la dhahay gabadhan Samsam oo iyadaba isxayeysiinayso oo YouTube soo wax soo gashay maxay dhahan TikTok ka shaqeysato oo daneeda gaarka isku xayeysiinayso waxaa qoorta loo geliyay nin lacag raadis rabo oo YouTuber iyo dad badan oo rabaa inay macnaa dayax magaciisa ay ku shaqeystaan oo wax been ay ka sheegeen ha ku shaqeystaano si fiican ha u hadlaan laakiin ma fiicna in macnaa laga been abuuro oo naagtiis lagu diro oo familkii reerkiisii familka in laga baabi'iyo looma baahna waxyaalaha soo qaar waxyaalaha marka social media ay soo dhigaan dadka badanaaba 90% waxay jecel yihiin in la iska qabsado qabsashada waa laga fiican yahay Soomaaliha israacdaan leenahay Soomaaliha midoodaan leenahay dadka isjecel isku waaraano labadii isqabta ilaahay ubad khayr qab allah kala siiyo allah dhexdhexaadiyo inta isdagaalsan allah qaboojiyo laakiin hudhud iyo xaasid ilaahan ka magan galne hudhud waxaa la ninka dadka kala beenta ka sheegay waxaan masiibo ee gabku ugu siinayo sida hadda wiilkan ay idin maqashiin doon codkiis oo dhahayo wuxuu dayax dalnuush wuxuu guursaday Samsam xoogaa yaraan rabaa inaa idinka maqashiyo daawasho wacan asxaabteeda maanta waxaynu barnaamijkeena ku eegi doonaa meherka dayax dalnuurshe iyo Samsam Cabdifataax Cali ama Farxiyo Moodal fanaanka caanka ee dayax Maxamuud Muuse Dalnuurshe ayaa waxa uu mehersaday gabar aad caan uga ah baraha bulshada gaar ahaan aaladaha Instagram iyo TikTok waxaana uu maanta meherkoodu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya meherkooda ayaa ahaa mid ay si weyn uga soo qayb galeen fanaaniinta iyo dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaana aad social media loogu qaadaa dhigaya oo lagu falanqeynaya xidigan iyo xiddigta nolosha ku midoobay oo dadka kale iska soo xushay si kastaba ha ahaatee dayax dalnuurshe ayaa waxa uu horay u qabi jiray ilaa iyo haddana qabaa Farxiyo Cabdiraxmaan oo barihii u dambeeyay ku jirtay isbitaal ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho dayax iyo Samsam ayaa waxa ay muddo badan saaxiibo ku ahaayeen barta Instagram iyagoo halkaasi isku dhaafsan jiray fariimo kala duwan oo kaftan iyo jacaylba leh ugu dambeyntii waxay isla meeraystaanba maanta ayay xalaal isku yihiin oo lamaane noqdeen dayax dalnuurshe oo marar badan dhihi jiray Farxiyo inan kale la guursan maayo ayaa maanta hadalkiisii beenoobay waxaana uu maanta jabiyay darbigii laba xaaslayaasha xaaskii hore ee dayax dalnuurshe ayaa la sheegay inay fajac iyo argagax ku noqotay xaaskan labaad ee la guursaday waa soo maqasheen asxaabe anoo badsanayn asagana YouTuber waa sideedoo kale ma jecli inaan macnaa aan faragelin weyn ku sameeyo ma jeclaa waxaan jeclahay qaladka intiisa badan inaa si cadaan aan idinku tusaan jeclahay marka asxaabe waa aragteen ninkaasi wiilkan gurug asaga lahayn uu macnaa uu ka sheegay oo dhahay waliba laba naag hore naag uu qawiir hadana waa guursada laba naag loo noqday xasbi allah nimcan wakiil masbidaad iyo been heerkaas gaarsiisan maxaa ku qasba walaalkay Soomaaliyeedo inaa wiilkan walaalkaaga aad reerkiisa dumisid aad ka been abuurtid oo naag ay istacaydeynayso iyada daneeda u shaqeysanayso TikTok ku jirto inaad sawirkiisa aad soo qaadid iyo sawirkeeda aad isku keentid oo ku cadeysid ku marqaati furtid oo tiraahdid ninka naagta uu qabaa sidii adiga waxaad isku soo nikaaxda oo kale aad u hadashid ma laga fiicno walaalkayga ma laga fiicno dulmiga heerkaas gaarsiisan waayo waxa aniga oo kor ugu kiclaanahay sababtoo asaga duu nadaamsan yahay oo reer uu leeyahay ciyaal uu dhalay mas'uul uu saaran yahay intii aad u khur laadahay ma sha Allah asoo yoros ninka mas'uul isaare wali ficis banaanka taagina seegseego sida aan jahdis u arkaayo insha Allah marka farxiyo waxa waa cadowgaaga ama Allah kaaga dhig horno ku dhahay walaalay hadana ku dhaha
waxaan jeclaa mar walba wixii soo zaa'id inaad ka hubsatid jaceylkaaga dhedheel farahaaga inaad ka bax aad macnaa sahal yuu kaaga bixin soomaali waa ujeedaa walaale waa intaas aad macnaa ninkaa naagtiis uu wadwadaayo waxaan jeclaa weliba sawirka aniga aan ugu jeclahay farxiya iyo dayaxna waa jeclaa inaan idiin soo geliyo maasha allah tabaaraka allah aad iyo aadaan u faraxsanahay marka farxiyo xabiibtihay waxaan ku leeyahay caafimaad buux allah ku siiyo saaxiib ha samaysan gabdhaha saaxiib ha samaysan waxaa lagu yidhi laba walaalaa issixrayso laba saaxiibbaa issixrayso wax walba banaanaya yaalaa markaan wax oo qarsoon ma jiro noloshaada hore u soco saaxiibkaaga ha ahaada ninkaaga walaalkaaga walaashaada kul ninkaaga ka dhigo labada gacmood iyo ilkaha ku qabaan ku leeyahay guuleyso weligaa gadaal ha marin ee dhihi jirta soomaalida hooyadii ay dhihi jirta aniya insha allah biidmillaahi alkariim qofka markuu aqligiisu weyn yahay hadda dayax dalnuush da-diisu waa yartahay laakiin maxaa weyn baawarkiis aqligiisaa weyn dadaa haddana waxay isoo qorayaan saas markaa oo hadleysnaag weyn aad tahay war saas ma ku yaraanay adiga alxamdulilah cumri ficiig waa haastaa mana weyne mana yari meel dhexaadaan ahay garasha iyo aqlina ilaaha iyo uumi aa isiista alxamdulilah cid kaa qaadi karta malaha cid ku siin kartana malaha qof walba markuu dhasho wuxuu aqligiis uu galo uu gudo taas le maantana macnaa goobta iyo social media iyo meel walbo kulan soomaaliyeed uu ka jiro uu la imaana insha allah anigana aqligeyga macaan allah ii zaa-idiyo ma jecli ani soomaali ina iska qabsato ma jecli bilaa macna inaa buuq laiskugu ma jecli wiil soomaaliyeed uu macnaa daqiiqad gudaheed macnaa uu ku dhinto ma jecli wax walba oo xumaan ayaan kasoo horjeedaa insha allah marka inta samaha jeclaan la hadlaa inta samaha jecel gabdhaha is ilmeenaya waa weyn tahay waa ka yar tahay heblo waay kid waay warweynaanteeda iyo yaraanteeda aniga ii taala howl adig ku qusaysa maaha laakiin adiga waa yaraha intaa istiraahdo naftaada been aad u sheegtid gumaysnin meelaha ku daahina ciyow ka xaroo qabow intaasaa idin faraa insha allah marka farxiyo adigana ninkii aan lagaa dhiginin aqligu rabaa inuu ninka kaaga dhigo inuu wehel kuu sameeyo inuu asaga macnaa oo reerkaaga u baabi'iyo rabo wiilka maanta oo social media ka sheegay inuu dayax naagtaas guursaday waana ogtaaday inuu dayax guursayn ayna ka suurtoobeen jaceylkiina xaddhaafka ee markay soomaalida arkeen ee waxay jeclaadeen in macnaa dhinac xun loo bedelo hor u socan ku leeyaa walaashay gacmo furan kusoo dhawaab sameeyo dayax adigan sidoo kale weligiin ahaada ul iyo diirkeeda insha allah biidmillahi alkariim marka walaalkay iyo walaashay qaaliga ah dhammaantiinaba waxaan jeclahay inaad si nidaam ah aad ku noolaataan insha allah sida aad ku socotiin hore u socda deganaanta ku dadaala mar walba ahaada dad istixgeliyo oo mar walba iska warqabo insha allah saddexoole jaanis yaa la siinin saddexoole haddaa jaanis siisin waa la kala jeesanaa xaasidnimada heerkaas gaarsiisan ilaahay nama soo gaarsiy idinkan allah idinka xijaabo insha allah asxaabteeda janalkeega ku xiran haddaa ka hesheen farxiyo ibraahim iyo intii ummadda oo fiirsataba subscribe sheerta waa dhinaciina insha allah welcome to farxiyo ibraahim